النبي عليه الصلاة والسلام وحو تلمامي قفكو انت walaalkiis masaalixdiisa iyo danihiisa uu la hagaajinayo asagana midiisa ilaahay inuu hagaajinayo man kana fi haajati akhi kana Allah fi haajati qofkii ahaada walaalkiisa muslimka ah masaalixdiisa iyo haajadiisa mid la fududaynaya ilaahayna wuxuu ahaada qofkaas fududeeyaha ah haajadiisa iyo dantiisa mid uu fududeeyo ayuu noqonahay wa fadli weyn adiga baahi baa qabtaa arrimaha culayska haysta in lagu sahlo lagu fududeeyaa rabtaa qof muslima haajadiisa la fududee wuxuu nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam waman farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu biha kurbatan min kurab yawm al-qiyamah qof mu'mina qofkii muslima qofkii kurba ka fayda oo adduunyada kurbadeeda kamid ah qofkii la qaybsado oo ka fayda ilaahayna wuxuu ka faydayaa asaga kurbooyinka qiyaamaha ayaa ilaahay ka faydayaa subhanahu wa ta'ala aljazaa'u min jinsi al'amal sida awalaalka kurbada uga fayday ku bishaarayso maalin ay kurbo weyn ay ku hayso ilaahay inuu adeegana ka faydahay waman satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah adduunyada qof muslima qofkii astura oo ceebtiisa qariya maalinta qiyaamaha asagana la fadeexaymaya ceebtiisa la asturaya wa al-jazaa'u min jinsi al-amal حاجاتك مسلمين تقول له استاجو أو لقى شقيه فضائل وين باكو سجان نبينا عليه الصلاة والسلام أبو سعيد أبو موسى الأشعري وحيري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا نبي محمد عليه الصلاة والسلام قف سائل أو وح سؤالنا يا هدو أي ماذا أما حاجة يضن لقد البه وحو النبي قرنا هيي ورإرجي أو شفاعة أجر بات كهليسان ورإرجي أو شفاعة أو ضدك أويدية أو خيرك كقيب قاطع إراهدا وحاد هليسان أجر بات هليسان والذين أجر سين ياله حاجة دان أهرنتان هلا فضودي قف كان سائل كاي أوليمت ولذلك جابر وحو لي رضي الله عنه مركو أرنكاس كهد لها وحو لي النبي عليه الصلاة والسلام لو لما إيمان حاجة يعرن لسؤالنا إياه ما ينرعين إنه يرى هذا الشيء قاس ولقيس لا ما بحنا هاي الشيء لو يدي استمعوا نندهن ما بحنا هاي دقس النبي ساهر كأجرتي وحو النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل قفكي أود إنه أنفع ولا الكيس ها أنفع هذا أود مالك أنفع كلمة طيبة إن أشفع عدد وإرجيسيد وهو لقبتي حاجة على إسكها يستأنا لفظ ذيسيد والقفكي أود ولا الكيس إنه أنفعها أنفع ولذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام وحول لي يا أبو سعيد الخدري أنه النبي قال لسعنا سفر أيا وحى يمدنن دابت سارن أيا يمد مركز أنك ظروف باكم موقتة باهي فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا وحنك جد قال أو بالله بي إنه أرجس أوريتشنا هي مدق يبدي إحساس إنه أم الإحسان هاي وحويا باهي ظروف باهي سبال قف وحولي بقى حاجة هي ظروف تهاي سلفض ذي ضدك بو إيجا هي مركز النبي وهطلع عليه الصلاة والسلام محوير النبي من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له قفكي هاي استجاريد زيادة ودابت يرتئي وح زيادة وطاع هكو عاوي وقف كان جديد وذن ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له قفكي وتصحي زيادة وسفرك وقصوا قلي وحك زيادة قفكي وطاع هكو عاوي وقف كان وذن وحي أبو سعيد الخدري فذكر أصناف المال ما ذكر
markaasaa nebigu tiriyey xoolaha iyo noocyadooda kulli qofkii saa haysta saa ha yeelo qofkii intaa ka ziyaada intaa ha celiyo si u waday ilaa aan aragnay buu yidhi qofna inuusan xaqba u lahayn wax ziyaada inuu haystaba qofba inuusan xaq u lahayn wax ziyaada ah inuu haystaba inaanan xaq u lahayn ilaa aan aragnay oo arrinta aan ka fahmnay arrinka isagaa wuxuu tusinayaa khayrka in lagu dadaalo mar walba oo dadka la anfaco iyo qiimaha arrinkaasi leeyahay saxaabada nebiguna sidaasay ahaayeen tarbiyada nebiga way qaatay waana min sifaati alanbiyaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu u yimid asagoo argagaxsan ummulmu'miniin khadiija radia allaahu canha xaaskiisii oo aragtay murugta nebiga ka muuqatay iyo argagaxa ka muuqdaa bay tihi kallaa wallaahi maa yukhziika allah maday tihi saa mooday maa arrinku ilaahay baan ku dhaartada ilaahay ku hoojin mahayo ilaahay ku hoojin mahayo maxaa yeelay innaka latasilu الraxim qaraabada waad xariiristaan wataxmilu اlkalb culayskana waad xambaartaa wataksibu اlmacduum shayga la waayana waad kasabtaa waad anfacdaa weeye qofka culusna culayska waa la qaadaa oo qofka isku filnayn culayska ayaa la xambaartaa وتقري الضيف مسكين كمرتك واسرتا وتعين على نوائب الحق نوائبتا يا مصائبتا يا حادثوينك يا دعدوينك markay jiraan oo culaysyadu ay jiraanna dadka ayaad ugu kaalmaysaa hadaa tahay marka dadka culayska mid ugu kaalmeeyo oo martigii soo rahaya oo qaraabadii xariirinahaya oo wixii la waayo dadku aysan haysan adigu aad haysan bixinaysid ilaahay baan ku dhaartay ilaahay ku hoojin mahayo macnaheedu waxa weeyaan qofka bulshada khayr u leh oo nacfiga u leh waa qofka ilaahay u naxariisanayo oo ilaahay masaa'ibta iyo balaayooyinka ilaahay mar walba ka badbaadinayo asaguna ahaanaya mar walba midka nool oo xayiga ah qalbigiisa iyo maalkiisa iyo caafimaadkiisa iyo badankiisu mar walba uu badbaadaya asaga ah maadaama ilaahay uusan hoojinahayn khayrkana uu ka shaqaynayo